maalmihii ugu dambeeyay waxay warbaahintu si weyn u falanqeynaysay madaxweynaha maraykanka oo doonaya inuu hor istaago buug uu qoray xogayihiisii hore ee arrimaha amniga ninkaasi oo loo yaqaanay John Bolton. haddaba sababta uu madaxweynaha maraykanku u diidan yahay in buugani oo la soo bandhigayo sida lagu wado 23 bishan aan ku jirno ee June xogta ku duugan ayaa ah mid fadeexad weyn ku ah madaxweyne Trump. qaybo kamid ah buugaasi oo la siiyay warbaahinta maraykanka qaar kamid ah sida wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa muujinaysa in warbixinta ku duugan buugani ay qayb kamid ah ku jirto in madaxweynaha maraykanku uu weydiistay hogaamiyaha dalka Shiinaha in uu ka caawiyo sidii uu Trump mar labaad ugu guuleysan lahaa doorashada dalka maraykanka lagu wado inay dhacdo bisha November ee sanadkan aynu ku jirno. xogta ku duugan buugani ayaa la sheegay in kulan gaar ah oo ay labada madaxweyne ku kulmeen oo madaxweyne Trump ku weydiistay in dalka Shiinuhu uu wax ka iibsado beeraleyda dalkaasi Mareykanka ama gobolada ay ku dhaqan yihiin beeraleyda Mareykanku si uu markaasi cod uga helo. waxaana waxyaabaha kamid ah la sheegay in Mareykanku uu ka codsaday Shiinuhu inuu beeraleydaasi ka iibsado qamandiga iyo waliba wax soo saar kale oo dhanka beeraha ah oo goboladaasi ay inta badan soo saaraan. waa qayb kamid ah qaababka doorashooyinka loo musuq maasaqo dunida reer galbeedka taasi oo aanay sameyn karin musuq maasaq toos ah oo markaasi lagu shubanayo codadka balse tani waa mid kamid ah qaababka loo musuq maasaqo doorashada. waxaana sharciyada dalalka qaarkood u yaala in arrintaasi ay la mid tahay mid uu meel ka dhac ku ah sharciyadii doorashada iyo waliba tartankii xorta ah. hore waxaa loo xasuustaa in madaxweyne Trump uu codsaday amaba uu kala shiray dalka Ukraine hogaamiyihiisa sidoo markaasi baaritaan ugu sameyn lahaa hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee haatan uga qayb gali doona tartanka doorashada Mareykanka lagu wado in November ka dhacdo John Bolton taasi oo fadeexad weyn ku noqotay madaxweyne Trump ilaa ay gaadhayba in mudanayaasha golayaasha dalkaasi ay soo jeediyaan in maamulka xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Trump walow xilligaasi ka badbaaday. haddaba madaxweynaha maraykanku maalmihii ugu dambeeyay ma uusan ka seexanin buugan cusub oo soo daabacay ama uu soo qoray xogayihiisii hore ee dhanka ama la taliyihiisii hore ee dhanka amniga John Bolton. waxaana haatan lagu wadaa ama la saadaalinayo in buugan uu ka mid noqon doono buugaagtiga loogu iibsiga badan yahay dalka Mareykanka. waxaana dad badan ay u hanqaltaagayeen buugaasi waxa ku qoran. Trump iyo kooxda raacsani waxay ku doodayaan in buugani haddii uu la soo daabaco ama la soo saaro uu markaasi halis ku yahay amniga dalkaasi Mareykanka maadaama oo xogaha buugani ku duugan qaarkood ay yihiin xogo qaranka Mareykanka u daahsoona. haddaba bal waxaynu sugi doonaa buugaasi iyo waxyaabaha ku duugan taasoo aynu halkani ku soo bandhigi doono. aad bay ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan kooban aynu ku eeganay arrinta dalka Mareykanka loogu hadalhaynta badan yahay xilligani ee buuga uu daabacay amaba uu soo saarayo ninka lagu magacaabo John Bolton oo ahaa la taliyihii dhanka amniga ee madaxweyne Trump oo isagu xilkaasi dhawaan iska casilay.